بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكجوابنا عodsi nooga yimi ardayd kamid ah ardayda la socda website casharadeenna online ka youtube kala socda kaasoo ah inay sameysay local serverkay ku sameysay wordpress host wordpress bay ku sameysay markaa waxay doonaysaa inay dallacdo oo ay geyso online serverka. markaa waxaan doonaynaa mid aan ku xagan ka tusno habka loo marayo inagoo markaa isticmaalina free web host. Free web host waa ardayga waan kula talinaya intuu baranayo inuu isticmaalo free web host in isticmaalo aan kula talinaya inuu barto uu eego uu ku barto intaanu ka lacagta bixin ka lacag buu ka doonayaa intuu iska lifi lahaa horta kana ku sii barto. aniga waxaan eegaynaa markaa 30 web host kaasaan ku eegaynaa markaa waa free weeyaan imika darkay sidoo kale waa $0 per month waayo marka waxaad oranaysaa markaa free sign up. markaad free sign up tiraahdo halkan waxaad gelinaysaa emailka halkan emailka gelinaysaa passwordka magaca website-ka uu bixinaysid kadib waxaad leedahay maxay get free hosting bes waaba intaaba fariin buu kuu soo dirayaa emailka dhexdiisa kugu soo dirayo waa waxay yidhahdaan confirmation code email waad gujinaysaa markaad soo furtid guji baad leedahay process verifying your email buu yidhi saasuu ku dhameeyey saasuu ku dhamaystiray. marka waxaan leenahay create your first email waa first website waxaad leedahay anaa sameysanaya next magaciisa u bixi passwordka u sameyso okay create baad leedahay marka wuxuu leeyahay inoo sameeyo inoo saas nagu dhamaystiray imika magaciisu waa kaas haddaan imika gujino wuxuu inoo geenay halkan inoo geenay laakiin wuxuu leeyahay weli maad samayn buu leeyahay. okay waxaan leenahay markaas waxaan leenahay wordpress inoo dooro usernameka kaas passwordkina kaa ka dhig okay install ooba intaaba gebiisuba wuxuu leeyahay imika boqointaasu marayaa tallaabooyin gebiisaba wordpresskan lagu sheegayaaba ama jumlahaada ama wordpress ama content management system haade wixii php ku dhisanba waa click weeyaan 3-4 jeer baad kala gelinaysaa gebiisaba. marka unpackaging buu wadaa imika creating database buu wadaa hadda marka waxaad arkaysaa inay sidii u fudud tahay gebigeedu wax weynba ka qaadan mayso intaad ku baranaysid wax weynba maaha waa intaaba gebigeeduba. themekii markaa hadduu saasuu ku sameynaya waxaan ku tijaabinaynaa mid kamid ah themamkii aan hore u sameynay koley themekaasi ma dhamaystiran laakiin tijaab ahaan baan ugu eegaynaa in uu inoo soconayo in kale. wuxuu inoo yaalaa exam dux wuxuu inoo yaalaa markaa magaciisa waxaa la yidhahdaa sacaada content theme wuxuu inoo oolayaa markaa magaciisu wuxuu noqonayaa nakhiil. waad kasii dhigaysaa markaa waxaad leedahay right click c send to composite ka kasii dhig gebigiisa waa intaa bal inoo soo refresh gara imika waaba intaa gebigiisaba waxaan leenahay waxaa kusii daraysaa wp admin passwordkina ha ilaabin aan markii sii isticmaalna maan sii sameyna ha ilaabin. passwordkina wuxuu ahaa admin labaduba passwordka iyo maxay haytoy iyo usernameka iyo passwordka labada admin bay ahayn xaggeena. waayahay waxaasoo dhan buu leeyahay update buu leeyahay update kaska sii
update hadda aragtid isagoo leh update-ka marka automatic iska sii kan iska qaad real estate now haddana dib ugu soo shubde waqti baan kaa qaadan maayo bes waa intaa wargebiisba waa kaa iminka inoo dhameeyey saasuu ku dhamaystira iminka saasuu sax ku yahay okay markaan taa upgrade wixiisa siinay waxaanu sameynaynaa hadda waxaan teginaa appearance theme add new upload themekeeni baan soo dalacaynaa ama waxaad sameynaysaa adoon iska lifinba halka ku jira soo qabo soo jiid halkaasun ku beeg waxaa arkaysaa magacii markii noo soo qabtay install now baad leedahay waxay baahantaa gabiisa weeyaanba haddii kale waxaad u isticmaali karaysaa file managerkaad isticmaalaysaa ama waxaad isticmaalaysaa tegaysaa settings kadibna general kadib ftp detailskaad isticmaalaysaa adigoo markaa isticmaalaya file zella google baad tegaysa waxaad ku qoraysaa file zella aad soo download garaysanaysaa markaa client markaad soo download garaysa waad furaysaa waxaad leedahay markaa anagana xaggan themekeeni mu inoo soo qabtay mise uu diiday soo maaha marka haddaba tallaabadii kalean qaadaynaa oo ah markaan tagnay setting general filezelan soo qabanay waan soo shuban informationka ftp-gan u baahan nahay xagganaan soo qabsanaynaa waxaan leenahay files hostinga xaggaasaad inoogu dhejinaysaa usernameka waa kaa passwordka ha ilaabin muxuu ahaa quick baad leedahay markaa okay uu wadaa wakaa inoo soo qabtay markaa faylashii caadiga inoo soo qabtay kaa inoo guji public html content na siigu dhex guji waxaad sii dhex gujinaysaa haddana soo qabtay sug waxaad soo qabanay wuu wadaa weli waxaad soo qabanaysaa theme inoo soo qabo haddaba markaan files la isticmaali maysid haddaba kan sidii caadiga ahaa aada u isticmaalaysaa soo dhex dhig markaa una fiirso markaa wuxuu leeyahay faylashu wado iminka faylashu adigu kanaan sameeyey faylashiisu aad bay badan yihiin waa 300 weliba waa kuwa weliba ma dhamaystirnayn saxmaha ma dhamaystirna qaarkood bay uga qaataa 1000 iyo siyaado 2000 marbuka qaarkood iga gaadhaa waxay ku odhan tahay faylasha la socda ay bay ku xidhan tahay kan oo kale faylasha dhan saaskii baa la socdaa waxaa la socdaa sawiradii iyo fontaasinkiiba la socdaa player baa la socda isna maxay haytoy bahalkiya jqueria farbadan yihi kalaga yaaba kaa kale inuu fudud yahay makaagu fudud yahay marka qaarkood bas kuu sheegay faylasha gudaha ku jiro keliya igu gaadhaa 2,000 kolba si bay noqotaa apply always apply okay waay video yar joojinayna intuu dhamaynay insha allahu tacaala waayahay uu sii dhamaynaya faylashii waxaan kusoo noqonay videogeeni faylashina uu sii dhamaynayaa wuxuu marayaa hadda 5 3 4 2 1 waa kaa u dhameeyey haddaba iminka haddaan aragno iminka website-keenii
website-keeni haddana iminka eegno waxaad arkaysaa markaa inoo soo refresh garee dashboardkii qeybtii appearance baan tegaynaa haddana theme baan ku celinayna waxaad arkaysaa markaa inuu inoo soo qabtay inoo active garee waa kaa bilaa sawirka haddaba aan eegno visit site taas ku dhamaystiran waa intaa gabigiisba marka waxyaalaha horeeyu sameeyey waxa kamida meelaha widgetka lagu talagalay automatic isagaa sii buuxiya kaa waxaad ka tegaysaa markaa widgets kadib waxaad arkaysaa meelaha isagu automatic uu kusoo daray ayuu kusoo daray automatic ahaan kusoo daraya ka saaruun waxaad u baahnayn ka saar meesha waxaad u baahantay kusoo dalac waxaan leenahay kan copy image press waxaan leeyahay kan xaggan igu keen tomads waxaan leeyahay from url ku dhaji okay save garay soo refresh garay haddaba pagekan home refresh halkastaa markiiba sawirkii soo qabanayaa sida caadiga ahayd buu ugu shaqeynayaa sida caadiga ahayd buu markaa igu shaqeynaya marka videogani saas uu ahaa saasaan uga faaideysanayna insha allahu tacaala kalo tijaab u ahaa website-kani qolan u waday aan u sameynayay laakiin khayr baa diri jiray insha allahu tacaala waa idinka markaan dhameeyey hawshaydii saasay ku dhamaystirantay insha allahu tacaala marka ma doonayo in informationkaygii la qaato delete baan ku wuri website-ka gibiisa oo delete garee kadibna waxaan tegayaa dashboardkaan tegayaa my websites waxaan tegayaa haddaba my profile kadib waxaan leeyahay close accountka gebiisaba please take a moment and tell this account sababta weli weydiinay adoo baktinayo is for teaching only so that inta ku daa edit my account marka account kama doonaya in dib loo galo inoo soo refresh garay pagekan fariin buu xaggan ku keenaya insha allahu tacaala markuu soo dhameeyo waan delete garan inagu laakiin daatadiina way noo soo garaysantay laakiin waxaan uga wadaa habkii maadaama ardaygu uu fahmay intaasaan ka dan leeyahay insha allahu tacaala khayr baa idin rajeynayaa saasi ka faaidayso assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wixii aad u baahan tihiina ka caawin karo halkaa PHP ga iyo VB.net-ka waxaad ka caawin karo insha allahu tacaala diyaar baan idin ahay assalaamu calaykum waraxmat ullah